habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacaddeenna fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa fiidnimo axadda habeen ay isniin soo gelayso bisha February ee sanadka 2021 waa 7. waxaadna naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo weliba bogga voasomali.com. saacadda Afrikada bari waa 7 fiidnimo. idaacadda caawana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Ibrahim Xasan Daandure. ku dhegeysan doontaan idaacaddana fiidnimo waxaa ka mid ah weerar ka dhacay gobolka galguduud oo ku dhintay sarkaal ka tirsanaa nabad sugidda. inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. halkaas waxaa ka dhacday baabuur sarkaal sare oo qoojo la yidhaahda oo madaxka ah iyo ciidamo la socday ayaa miino loo dhigay. sarkaalkii iyo qayb ka mida waa dhinteen, marka bam halkaa la dhigay ayuu ah. waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja. sarsarkiiyo hashii labada geel soof ku wada raacday ee bahalku seeraha ku dilay kama sokaysaan. qodobadaasi iyo qaar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa. marka hore isku soo dhawaada warkii dunida iyo Zahra Cabdi Axmed. hay-adda qaxootiga qaramada midoobay u qaabilsan ee UNHCR ayaa ka digaysa xaaladda nololeed ee kumanaan qaxooti reer Eritrean ah oo ku dhaqan gobolka mushkiladaha ay hareeyeen dalka Ethiopia ee Tigray. UNHCR ayaa sheegtay in dadkaasi ay u baahan yihiin kaalmo iyo difaaci degdeg ah. kahor inta uusan bilaabanin dagaalka Ethiopia, milatariga dalkaasi Ethiopia ay ku qaadeen gobolkaasi Tigray horaantii bishii November. waxaa UNHCR ay qaaday sida ay sheegtay 96,000 oo qaxooti ah, kuwaasi oo la geeyay 4 xero qaxooti. wixii intaasi ka dambeeyay waxa ay sheegtay UNHCR inay luntay awoodeedii ay dadkaasi ku haysay ay wax ku siinaysay iyo sidoo kaleeto awoodii ay ku booqan kartay xeryahaasi. ilaa iyo bishii Janaayo ciidamada Ethiopia iyo UNHCR-ba midkoodna ma tegi karo meelaha yar ee gobolkaasi koonfureed ee dhinaca amniga awgeed maadaama dagaalo ay ka socdeen halkaasi. malaayiin taageerayaal ah ayaa isu diyaarinaya daawashada ciyaarta kubadda cagta Mareykanka ee sanadlaha ah ee loo yaqaano Super Bowl. saraakiisha caafimaadka ayaa waxa ay ka baqayaan in daawashadaasi ay noqoto mid ay ka dhacdo inuu si weyn ugu faafo xanuunka COVID-19 maadaama dadku ay isu dhowaanayaan. waxayna ugu baaqeen dadka inay la daawadaan ciyaaraha kuwa ay sida weyn isugu dhow yihiin oo keliya. caadiyan qoysaska iyo asxaabta ayaa waxay isugu yimaadaan guryaha, baararka iyo maqaayadaha si ay u wada daawadaan ciyaartan. dhaqankaasi ayaa waxa uu ahaa mid sanado aad u fara badan kasoo jira wadankan Mareykanka, waxayna u egtahay in ay sababi doonto kor u kac marka ay dadka isu yimaadaan coronaviruska sanadkan hadiiba taasi ay dhacdo. Mareykanka ayaa ah dalka diiwaangeliyay kiisaska ugu badan ee xanuunka COVID-19 iyadoo sidoo kaleeto ku dhowaad 30 milyan oo kiisa la xaqiijiyay ilaa iyo sanadkii hore. maanta oo axada islamarkaasina waxa ay ka badan tahay 460,000 oo qof inay u dhinteen tirada dadka dhimashada sida ay shaacisay xarunta la socoto xanuunka COVID-19 ee jaamacadda Johns Hopkins. marka loo eego Mareykanka waxaa kiisaska tirada dhimashada hogaaminaya wadanka India oo ku dhowaad 11 milyan oo kiis xaqiijiyay iyo Brazil oo diiwaan geliyay 9.4 milyan oo kiis. isbahaysiga milatariga uu hogaamiyey Sacuudiga ayaa waxa ay qabteen diyaarado nooca aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaan droonka oo ay soo gantay fallaagada ka tirsan dhinaca Yemen sida axadda maanta ay ku warantay warbaahinta dowladda. wakaalada wararka ee amniga ah ee Sacuudiga ayaa xaqiijisay bayaan ay soo saareen kadib afyeen u hadlay isbahaysiga Turkiga Al-Maliki ayaa waxa uu sheegay inay qabteen oo ay burburiyeen diyaaradan oo ah nooca aan duuliyaha lahayn. waxa ay maleeshiyada argagixisada ee Xuurtiyiinta si ula kac ah u qaadeen bartilmaameedyada dadka rayidka ah ayaa lagu yiri bayaankaasi. kooxda Iiraan ay taageerto Xuurtiyiinta oo iyagu maamulo inta badan Yemen koonfurteeda ayaa san sheeganin ilaa iyo haatan ayaguna
mas-uuliyadda weerarkaas inay ka dambeeyeen. dhacdadan ayaa timid iyadoo ergeyga gaarka ee qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha yemen Martin Griffiths uu bilaabay booqasho 2 maalmood ah uu ku joogo Iiraan si uga hadlo dhibaatooyinka bini'aadanimo ee yemen kadib markii maamulka madaxweynaha dalkan Mareykanka Joe Biden uu isagu ku dhawaaqay isbuucii lasoo dhaafay in uu ka laabtay taageerida duulaanka Sacuudiga uu hogaaminayo ee gudaha dalka Yemen. Jimcihiina waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in ay ku wargelisay Koongareeska in ay damacsan tahay in ay jabhadda Xuutiyiinta ka saarto liiska ururka argagixisada caalamiga ah. 10,000 oo qof ayaa maalintii labaad socod waxa ay ku mareen magaalada ugu weyn dalka Myanmar iyagoo markaasi 10,000 kaleetana ay isugu soo urureen daafaha dalkaasi si ay ugu mudaharaadaan afgembiga isbuucii hore uu milatariga awoodda kula wareegay iyo argagixis iyo xariga loo geystay hogaamiyaha la doortay ee dalkaasi Aung San Suu Kyi. mudaharaadyadaan oo ka dhacay dalkaasi xilli la jaray internetka ayaa waxaa jirta xadidaad khadka taleefoonada ah iyadoo banaanbaxyaduna ay yihiin kuwii ugu waaweynaa ee ka dhaco dalkaasi tan iyo sanadkii 2007. dadka dibadbaxaasi oo ku sugan magaalada Yangon oo ah caasimada ganacsiga ayaa waxa ay wataan buufino cascasaan ah oo iyagu midabka xisbiga Suu Kyi ee National League for Democracy ah waxayna ku qaylinayaan dooni mayno kalitalisnimo military waxayna doonaynaa dimuqraadiyad. militariga dalkaasi Myanmar ayaa xukunka afgembi kula wareegay isniintii lasoo dhaafay taasi oo keentay in dimuqraadiyaddii curdunka lagu sheegayay ee dalkaasi ku yaala koonfurta bari Asia si kadisa u hakato sababtana cambaareen caalami ah. aad ay u mahadsan tahay Sahare Cabdi Axmed oo warkii caalamka inoo akhrisay. halka aad nagala socotaanna waa VOA. aan ku bilownay wararka ka imanaya bartamaha Soomaaliya ayaa sheegaya in qarax culus lala beegsaday baabuur ay la socdeen ciidamada amniga ee maamulka Galmudug. qaraxa ayaa sida wararka ay sheegayaan lala eegtay baabuur uu la socday taliyaha nabad sugidda degmada Dhuusamareeb Gaashaanle Cabdirashiid Cabdinuur Qooje iyo askar la socotay. wariyaheena Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa arrimahan ka wareystay wasiirka warfaafinta Galmudug Axmed Shire Falagle. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. halkaas waxaa ka dhacday baabuur sarkaal sare oo Qooje la yiraahdo oo madaxda iyo ciidamada la socday ayaa miino loo dhigay sarkaalkii iyo qayb ka mid ah waa dhinteen marka bam halkaa la dhigay ayuu ahaa. khasaaraha haddaad si guud inoola wadaagtid dhimashada iyo dhaawaca ciidanka. sarkaalku waa dhintay dhowr askarina waa dhimatay marka numberka dhintay hay'adaha amniga faraha ku haya in sarkaalna dhintay askartii la socotana waxna dhintay waxna dhaawaceen baahan. waxay ahayd meel aan sidaa uga fogeyn duleedka Dhuusamareeb wadada laamiga ah ee xiriirisa Dhuusamareeb iyo Burceel. marka mas-uuliyadda qaraxaasi waxaa sheegtay shabaab. ma moodaa in xaaladda amniga deegaanada Galmudug ay khalkhalgelin xoogan ku hayaan maleeshiyaadka al-shabaab? bam horta wada la dhigay dhawaan iyo fogaan midna male. bam meel waa la dhigi karaa marka bamku asagoo kuma xirra meesha uu yaallo dagaal ma dhicin. bamkuna hadde dee wada la dhigaayo waa wax adduunka o dhan ka jira marka laguma nisbayn kara in amnigu qalqal ku jiro. waa dhacdo weeye. allah u naxariistaan inta ku dhima. saacadtu wasiir waxaan ognahay iyadoo madaxweynihii dowladda federaalka iyo madaxdii dowlad goboleedyada ay Dhuusamareeb ku shiirsan yihiin in maleeshiyaadka shabaabku ay weeraro hoobiyaala ay kusoo qaadeen Dhuusamareeb. marka ma waxaad leedihiin ma jirto cabsigelin amni oo shabaabku ay deegaanka ku hayaan? maya cabsi kama jirto. deegaanku nabad weeye. iskarqalmo waa dhacaan wax waa dhacahayaan oo dee waa saa sheegaysa laakiin deegaanka amni darri waxaa loo yaqaanaa deegaano qaadaasi ka jiro oo maaragtay ciidamo isku hor fadhiyaan oo wax noocaasa. arrintan kale waa arrin maaragtay dhacdooyin. haddii aan si kale u dhigno muddo kooban waxaa deegaanada Galmudug lagu dilay ama siyaaba hab qabaa'il ugu dhintay ama maleeshiyaadka shabaabku ay dileen saraakiil iyo ciidamo fara badan oo ay ka mid ahaayeen taliyihii qaybta 12aad taliyihii danab deegaanada Galmudug abaanduulihii danab
saraakiil sarsare iyo ciidamo fara badan gaalkacyaa lagu dilay 7 sargaal waxaa lagu dilay inta udhexaysa balambal iyo cabudwaaq maantay oo ugu dambeysay dhuusamareeb duleedkeeda waxaa ku dhintay taliyihii nabad sugidda degmada dhuusamareeb iyo 11 askari oo la socotay marka maxaa lagu macnayn karaa dhibaatada intaa la eg oo saraakiisha loo geysanayo barnaamijka haatan marka ay soo wacaysay waxay ku soo wacaysay dhacdadii maanta dhacday haatanna waxaa soo qoftay barnaamijyo kale marka waxay barnaamij gaar oo arrimahaas looga hadlayo inaad soo diyaariso aniguna soo diyaariyo laakiin haatan waxay dhacdadii unbaa ii soo wacday dhacdadii baa kuu sheegay wax u dhaceen hadda waa sidii xaaladda guud ee halkii ay wax ka dhaceen xaaladda guud bawr jidka malayay oo bam la dhacay beedkii iyo dhaawicii oo aan soo qaadnay iyo bamkii meesha ku qarxay wey xaaladda sida ay wax u dhacaan waa sidaas ciidamo meel ku diriray oo 2 xaaladooda oo degenaansho iyo degenaansho la iska wareysanay ma ugu dambeyntii maxaa shacabka galmudug ugu baaqi lahayd shacbiga galmudug waxa ugu baaqay inay gacmaha isqabsadaan midnimadooda ilaashadaan dagaalada qabiilka ee geesaha ka fikirada la afjaro loona jeesto sidii loona walaaloobi lahaa deegaankoo nabad iyo wadajir uga shaqayn lahaa sidaasa wax walba oo horumar lagu gaari lahaa nabadooda iyo dowladnimadooda ilaashadaan wasiirka warfaafinta galmudug axmed sharaf falagle oo u waramayay wariyahayaga cabdiwaaxid macalim isxaaq xildhibaan golo deegaan oo laga soo doorto degmada Chelsea ee Kingston ee ku taala galbeedka London ayaa dadaal ugu jira sidii uu uga wacyigelin lahaa jaaliyadaha laga tirada badan yahay ee Britain oo Soomaalidu ay ku jirto in ay qaataan talaalka COVID-19. Qaasim Cali waxa uu ka mid yahay guddi ay dowladda hoose ee Chelsea iyo Kingston ay u magacowday kala shaqaynta dadka deegaanka xanuunka COVID-19. qaasim cali oo orodyahan ah ayaa bishii December waxaa ku dhacay xanuunka COVID-19 waxaana uu ka cabsi qabaa in jaaliyadaha ajnabiga ee ku nool London in ay ka cagajidayaan talaalka iyadoo aysan aaminaad ku qabin. wariyaha VOA ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa waxa uu wareystay xildhibaan Qaasim Cali waxaana marka ugu horeysa uu weydiiyey qaabka uu isaga ugu dhacay xanuunka iyo sida uu la tacaalay. sidaad la socotid degaan ahaan waxaan deganahay galbeedka London, West London. waxaan inta badan ka shaqaynayay sanadka bilowgiisii 2020 bishii 3aad food banks ama meelaha dadka looga caawiyo cuntooyinka iyo dadka dhibaatada kasoo gaartay cudurkan ayaan in badan ka shaqaynayo taageerayay maadaama aan ahay xildhibaan golaha deegaanka ah. ilaahay iguma ridin oo markii hore wax badan ayaan maaragtay ka shaqaynayay laakiinse markii haddana iskuulka markaas u xirnaa iskuullada markii la furay oo caruurta September ay ku laabteen October, November, December 7deedii ayaan maaragtay aan yara xanuunsada madax xanuun iyo waxaan isku arkay iyo temperature aad u badan ama kuleel aad u badan. isla maalintaas waan dareemay waa soo baaray ciyaalka iskuullada kasoo wada lagu yiri oo si aan isolation ama aan guriga iskugu soo xirno oo aan dadka kale u dhex gelin. 7 bisha 12aad December 7deedii 2020 ayaan maaragtay laga qaaday testiga. 8 bisha habeenkii markay ay ahayd 8 bisha oo eveningkii adiga 6 ama 7 oo ah habeenkii ayaa la ii soo sheegay testiga inaan ahay positive COVID-19. waa tahay markaa xildhibaan Qaasim sidee ayaad ula tacaashay? ninhow inta badan aniga waxaan samaynayay oo ugu muhiimsanaa dhaqaatiir badanna aan ku xirnaa oo dad badan aan la sheekaysanayay sida macnaha wax looga qabtay iyo sida wax la samayn karo. waxaan ku dadaalnay kuleel wax kulul sida liintoo kale oo la qasay, maxaa la yidhaahdaa malabka, biyaha kulul, wax kulul inuu qofka inta badan u cabo ilaahay amarkiis. ilaahayna waa noogu gargaaray. liinta kasoo qaad iyo maxaa la yidhahdaa iyo garlic toonta sida malabka iyo arrimahaas ayaan inta badan isticmaalayay. waxaa kaloo muhiim ahaayoo jiray inaan soo gatay markii aan la ii sheegay inaan cudurka positive ku ahay viruska, waxaan soo gatay bahal farta la geliyo lagu tijaabiyo oxygenkaaga. waana inta badan waxay dadka dhibaatada kasoo gaartay oo ah dadka madow iyo dadka maxaa oo asiaanka ah. kaas ayaan soo gatay. marka waxaan ku dadaalaya inaan temperaturekayga inaan la socdo, inaan oxygenka jirkayga la socdo. taas ayaan maaragtay ilaahay nuuga mahadinaya.
waa tahay haddii aynu usoo noqonno jaaliyadda laga tirada badan yahay dabcan dadka madow dadka eshiyaanka soomaaliduna ay ku jirto dadaalkan aad ku jirto ee wacyigelinta ahna aynu eegno maxaad is leedahay xildhibaan qaasin way tahay sababta ugu weyn ee dadkaasi ay uga cagajiidayaan amaba ay uga baqayaan tallaalka? tallaalka kasokow waxaan rabaa inaan ummadda khaasatan dadka soomaaliyeed u sheego inay muhiim tahay markii allaala markii ilaahay qadaro ilaahay hanaga wada hayo cudurka inuu nagu dhaco dad badan oo ka badbaadeen dadna waa naga dhinteen waxaana rabaa inaan dadka soomaaliyeed dareensiiyo 30 sano Soomaaliya dagaalada ka socday anaga xataa aan ku dhalan dagaalo ayagoo socdo maxaa la gobolada dalka hadana caasimada loo soo gudbay intaan qof aqaanay oo dhimatay coronavirus-ka sanadkan hadda la soo dhaafay weligood ma aysan dhiman marka waa dhibaato weyn ayuu gaarsiiyey ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan marka waxaan ku leeyahay dadka waxa ugu muhiimsan oo waan ka hadli doonaa talaalka laakiin waxaan rabaa dadku markuu cudurka ku dhaco ay dareemaan inuu COVID-19 hayo in ay la socdaan oxygenkooda dadkana waxa dhibaateeyay waxay yihiin isbitaalada ayay ka baqanayaan waxay leeyihiin isbitaalka waa lagu dhimanayaa markaas ayaa waxa dhacayo in oxygenka jirkoodiina ku jirin oo oxygenkoodii dhamaaday oo aan xibnihii muhiimka ahaa sida keliyihii sanbabadii iyo xibnihii kaloo jirka muhiimka u ahaa ay gaarsiiyo wadnihii oo kale ay oxygenka ka dhamaado mar alaal markuu oxygenka qofku ka sii yaraadana xibnihii waa sii tabarbeelayaan markaasaa qofkii miir daboolmay ama coma ku jiro ayaa waxa la geenayaa hospitaalka waa la geenayaa comada uu ku sii jirayaa in badan oo comada gashana soo ma noqdaan marka dadku waxa leeyahay xataa soo gata baarka oxygen waxa lagu cabiro guriga haseekin yaalo iska fiirsha marka dareentid oxygenkaaga inuu 93 ka hoos maray ama 92 93 ka hoos maray waad ku qasbantaa inaad hospitaal raadsato si oxygen lagu shubo si kastaba cudurkan ha u dhashay cudurkan maanta waana uu dhacay dad badan ayuu ku dhacay dad badan ayaa nafta ka baxday daawadiisa ayaa la helay hadda oo ah cudurkii oo dhintay in qofka lagu abuuro si jirkiisa difaaciisa oo u siiyo boost ama uu kaalmeeyo oosan hadhow ku samaysan waxaan leeyahay marka qof kastoo hadda maanta gaaray oo loo offergareey ama loo la siiyey inuu daawadaas qaato in uu qaato sababtaan idin sheegaya muhiim ku tahay jirkaaga markii uu difaaca jirkaaga ama immune systemkaaga oo ilaahay ku awoodsiiyo inaad inta lagu diro haddana 3 isbuuc kadib ama 12 isbuuc kadib aad u soo laabatid midda labaad qaadatid waxaad helaysaa inuu cudurkan jirkaaga ay isbartaan oo dhibaato ku geysan waxaan leeyahay daawadan haddii aadan hadda qaadaninna waxa waa rabaa dadku inay la fahmaan waxay ku qasbanaan doonaan inay qaataan daawadan waxay noqon doontaa in la yiraahdo qofka passport ayay ku noqonaysaa COVID-19 passport ama tusaale ahaan safar markaa rabto inay aado kale hadda xataa way dhacdaa qofka markuu safar aad qofka lagu xidhay inuu talaalki qaatiyo in kale inuu talaalki qaato sax qaasin haddii aynu u soo noqonno London adigu xildhibaan baa tahay degmooyinka Kingston iyo Chelsea ayaa laga soo doortay haddii ay noqoto maamulkiina iyo haddii ay noqoto guud ahaanba dowladda dhexe ee dalka Britain ma jirtaa wacyigelin weyn oo jaaliyadaha laga tirada badan yahay Soomaaliduna ay ku jirto ay sameeyeen oo ku saabsan talaalkan? dabcan waa jirtaa madaan kuu kala qaado dadkeena Soomaaliyeed horta waa dad markii bulshada kale wadankan loo fiirsho farkutiris ah laakiin sidaas darteed haddana waa jiraan organizationo badan oo isku midoobay oo ka howlgala wadankan UK oo isku tegay oo aadna maaragtay uga dadaalayay inay dadka ka wacyigeliyaan maaragtay galbeedka London ka tirsan qaarkood gobolada dalka ka yimid ayaa ka mid ah oo aad u dadaalayay iyo organizationo badan oo ama maamulo badan ama hay'ado badan oo aad uga shaqeeyay oo isku keenay dad Soomaaliyeed waxaa jirta dhaqaatiir oo anaga hadda meesha aan laga doortay wardkayga laga doortay joogo oo ka wacyigelinaya dadka kaas waxa uu ahaa Qaasim Cali oo ah xildhibaan golo deegaan oo ka tirsan London oo u warramay wariyahana Cabdixaafid Cawil Ismaaciil. haatanna Gaarisa muran la xiriira mulkiyadda dhulka ayaa muddooyinkani ka taagnaa deegaano hoos yimaada magaalada Gaarisa ee gobolka waqooyi bari ee dalkaasi Kenya dadka ayaa qaarkood aaminsan in hantiilayaal ay boobayaan dhulkooda hogaamiyayaasha bulshada ayaa ku eedeeyay dowladda in ay ka gaabisay xakamaynta isqabqabsiga dhulka maxamed faarax shire ayaa warbixintan noo soo diray hogaamiyaal kala duwan oo gobolkani ka soo jeeda ayaa cambaareynaya qorshaha ay dowladda dhexe iyo weliba dowlad goboleedka Garissa County ay uga aamusan tahay hanaanka haatan dadweynaha ay isugu haystaan dhulka kore magaalada Garissa. aniga magacayga waxaa la yidhaahaa Cadda Useedow Aadan
ummadda gaaris ku nool baan ka mid ahay. nabadgelyada waxay ku jirtaa inay dadkan la soo doortay waxa ay ka hadlaan, dhibka inay ka hadlaan. hadday ka hadli waayaan sooma aho nabad ayadaa iska imaan doontaa. markuu dagaal dhaco oo la daalo nabad ayadaa laga qabtaa oo imaan. laakiin hadda nabad ma jirto, ma hurudno, ma hergelno. haweenkanaga meeshay joogaan ilmo qada looma kariyo, dadkii wuu tuuran yahay. dr maxamed daahiye ducaale oo ah mudanaha degmada dhadhaab laga soo doorta ayaa dhaleeceeyey qaabka ay dowladdu uga aamusan tahay xakameynta qulqulatooyin qaybo badan oo ka tirsan gaarisa ka jiro. waxauna sheegay in dowladdu haatan looga baahan yahay shacabkeedu ay ka badbaadisa ganacsato waaweyn oo usoo kici tumayn dhulka dadweynaha ay gacanta ku dhigaan. waxaan u malan gaarisa township maanta meesha ugu khatarsan oo dhibka ugu weyn u ka socdo weyn dilka meesha ka socda in la joojiyo. leenahay mas-uuliyadda waxaa qaadani dowladda national iyo dowladda countiga. annagona hadda ninna aan farna ku fiiqayno sababta ay tahay waxaa la isku dawaa maxay waxaa la isku dawaa maa maxay dhulka asaga dadka inuu siiyo u sharciyaa iska leh. goormay ugu dambaysay dhul dad la siiyo oo loo sharciya dadka hadda meeshan reer gaaris wuxuu meeshan jooga imisaa ruux baa taasoo dhin haystaa. ninkastana guryo dhiso soo saas ma haddii la sugi lahaa dhulalku waxay u kala qaybsan yihiin kuwa daaq lagu diriraya iyo weliba kuwo deegaaneen cusub ay ka jirto. halkanna waa deegaanada cusub ee gaarisa county. haatan waana duleedka deegaanka gaarisa. dad fara badan oo deegaankaasi deganaana haatan waxay aaminsan yihiin in ganacsato xoog iyo dhaqaalo lah ay ka barakicinayaan deegaankaasi. sidaasina waxaa ku doodaya sankuus gaaran oo ka mid ah odayaasha dhaqanka degmada tani gaarisa. waxaa degan dad masaakiin guryo ayaan ku dhisannay mudulooyin iyo kodkotooyin. ma awoodna inaan guryo weyn oo dhagax dhisanno. dad waxaa soo duulay haddaan nahay dadkii waa beri highland waxaa soo duulay dad yacag qaba oo taajiriin oo mataqaanta ka imaadeen nairobi. yaan rabaan dhulka annagii intaasana aan ku dhimanayn 22 sana guryaha noogu dhisnaa inay naga qaataan, xoog nooga qaataan. mana ogolaanayna arrinta ayada. dhimasho baan ka xigaynaa. dowladda hana soo gaarto, dowladda sare iyo dowladda hooseba. mudane sankuus ayaa waxa uu sheegay in deegaanka haatan culayska faraha badan uu ka jira hareeraha deegaanka modikaria oo 15 kilomitir in ka yar magaalada gaarisa u jiro. ka badan ay dadkaasi halkaasi deganaayeen. waxaa la rabaa dhulkaanagii 22 sana aan deganayn ee reer gaaris ii lahaayeen baa la rabaa xoog in lagu qaato. dhulka asagaa baa la rabaa xoog in lagu qaato. dhulka asaga xoog in lagu qaatana ma ogolaanayno. intaasoo sanaan deganayn. dhimasho unbaan ka xigaynaa. dowladda waxaan u cabanaynaa haddaan nahay buulo highland gaarisa haddaan nahay waxaan ka cabanaynaa dowladda u cabanaynaa nimanka ayaga inna laga qabto. waxaan u cabanaynaa county commissioner gaarisa, gafana gaarisa cali bunow qorane, majority aadan bare ducaale oo imbigii township. gobanarka gaarisa county mudane cali bunow qoran ayaa waxa uu sheegay in aan la degi karin inta ka korayso deegaan ay dowladdu u calaamadaysay in magaalada gaarisa ay ku eg tahay. dhiiggan dhulka lagu daadinayo looma ficno. dhulkan barakadu ka qaadi, ruux baa ku aabaweyni, caruur baa ku agoontoobi. dilkan saa u dhib yar, ruux baa ku agoontoobay, cid idil baa ku aabaweysay. laba tuug oo brood isku dagaashay qabiil intuu ka soo geli meeluu ka soo geli ma leh. waxa aan yaraysanaynan aan iska dayno. dil waa dil, wax xun weeyo. dhiig in la daaday ma fiicno. magaalada nabad ha lagu wadano. anaka dhan arrin nagagama jiro. maxamed farax shire, v o a gaarisa. haatana waxaad dhegeystayaal ku soo dhawaataan xubintii wicitaanka dhegeystaha iyo zahre cabdi axmed. kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan. ka gadaal markii uu burburay shirkii ay beesha caalamka riixiisay dadka Soomaaliyeedna wax badan ay rajada ka qabeen ee magaalada Dhuusamareeb ee dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale xubnaha maamul goboleedyada ka ah ee dalka ayaa waxaa shalay uu ka hadlay madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo baarlamaanka Soomaaliya. khudbadiisa intii ugu muhiimsaneed ayaa waxa ay ahayd in xubnaha baarlamaanka Soomaaliya looga fadhiya ayagu in ay xal ka gaaraan arrinta murugsan ee siyaasadeed ee dalka. haddaba baarlamaanku maxaa uu ka qaban karaa dhibaatada waqtigan jirta ee xagga siyaasadda Soomaaliya? waxaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan marti noogu ah oo arrinkaasi nala faaqidi doona
xildhibaan maxamed cumar dalxa oo ka mida mudanayaasha baarlamaanka ah ee aqalka golaha shacabka bal soo dhawow mudane ugu horeyntii. zahra waa dhowahay waana idin salaamayaa adiga iyo dhegeysaneysaba soomaali meel kastoo joogto gudaha iyo dibadda dalka. waayahay waad mahadsan tahay mudane. shalay maxaa kaaga baxay khudbadii madaxweynaha haddaan kugu hormaro? waa mahadsan tahay. madaxweynaha khudbadiisu waxay ahayd warbixin maaragtay ka turjumaysay shirkii samareeb hore la oran jiray oo ayaga kulankii ay ku lahaayeen maaragtay madaxda maamul goboleedyada natiijadii uu kusoo dhammaaday oo uu ahaa mid aanan laysku soo afgaranin qodobadii halkaasi laysku soo qaaday. sidaasi aawadeed iyadoo mar waliba madaxweynaha laga rabay waajib ahaan markii ay sidaas oo kale ay u kulmaan wixii ay isla soo gaaraan in baarlamaanka lagu soo simo kadibna baarlamaanka uu talo iyo go-aan wixii isaga markaa waajibaad dastuuri uu leeyahay isaga inuu qaato. marka tiimun bay waafaqsanayd. marka baarlamaanka marka warbixin buu siiyey, baarlamaankana waa dhegaysay wixii marka baarlamaanka uu ka ambaqaadi lahaa isaga iyo taalaa wixii ka bilowdo beri iyo maaragtay iyo saadambe. waa hagaag. baarlamaanka waxaa la gudboon iyo waxa aad qaadi kartaan dhammaanba su-aalahaasi dabcan waxay ka imaan doonaan dhegeystayaasha khadadka telefoonada ku jira. dhegeystaha ugu horeeya ee codsatay inay baarlamaanka xubinta ka mid ee nala hadlaya ee la hadasho waa gabar joogta magaalada Hargeysa. soo dhowo walaal, magacaagana ku bilow. salaamu calaykum. karaadi axmed ma maqlaysaa horta? si fiican ayaan kuu maqlaa. okay, aniga salaamu calaykum. magacaygu waa faadmo ibraahim ismaaciil oo joogta Hargeysa. walaalkay maxamed cumar dalxa waan ku salaamay. soomaali siyaasadeediina lagaaga warrami maayo, adaaba dee jaamacadda carabtana ugu jira. waxaan weydiinaya walaalkeen maxamed cumar dalxa, waxaynu ogeyn xilligii xasan sheekh maxamuud iyo shariif sheekh axmedda xoogaabaa loogu daray. qoladana berri waxay kaga eg tahay isniinta. marka in dadkii loo tudo iyo dalkii loo tudo oo wax la badbaadiyo miyaanay ahayn? inta midi ku taagay adduunka ka socoto. midda kale haddaa saaray inta hadii saamaxdo soomaali waa isku diin, waa isku diir, waa isku dad. ummado kala diino kala afoo kala dhaqana dawladaha wada dhisto wada haysta. waa shirkii markii halkaa lagu kala kacay alay wallaahi oo bilaahi soomaali gabal madoobe inuu dimay baan anigu moodayay. haddana saaka waa taasa waa la noolyaho waa socda. waad mahadsan tahay. simanku weydiinaya. asalaamu calaykum. aad baad u mahadsan tahay. dareenka dadka shacabka professor maxamed cumar dalxa xildhibaan, waxaa jirta dareenka dadka shacabka ay qabaan cabsi fara badan ayay muujinayaan. maxay noqon doontaa dowladda xilligii? waa kaasaa 8 Febraayo way dhowdahay. waxaa jirta inaan ilaa hadda masiir siyaasadeed lagu heshiinin, doorashadii waa halkeedii. marka dadka cabsi fara badan ayay qabaan, hadiiba xataa si aan sii daba raaco warka oo Faadimo ay ka hadasha hadda. marka maxaa adinka idinla gudboon oo gacantiina ku jirood qaban kartaan? zahra waa mahadsantahay adi iyo gabadha walaashayda Faadimo ayaa Hargeysa kasoo hadlaysaa. annaga welwelka iyo walaaca shacabka marka sidaas oo kale ay qabaan, annagana saameyn ayuu nagu yeelanayaa welwelkaas iyo walaacaasi. waayo waxa aan ka turjumaynaba waa codkooda iyo rabitaankooda. laakiin mar waliba shacabka soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa waxa laysku maaragtay maamulayo dawlad marka laga hadlayo waa sharci iyo nidaam iyo xeer oo u baahan in la ixtiraamo oo la qadariyo. waana midda annaga oranaya qodobka maaragtay maaragtay dastuuriga ee mabaadihiisana maaragtay asaasiga mid kamid ah oo aada ugu maaragtay lafagurayo waa saraynta sharciga. haddii sharciga la ilaaliyo oo sida uu yahay loo dhaqangeliyo, wax weliba waxay yeelanayaan xal loogu gudbi karo oo maanta dadka soomaaliyeed ayaga ay ku qanci karaan. horeyba maanta waxaanan xal maaragtay ama iyaga loo arkay oo xaqdarro ahayd ayay soomaali ilaa iyo maaragtay carta ilaa yomana haada ayaa u ah slogan. yani waxay aragtay xaq ma aha, laakiin waxa waaye xal baa laga rabaa oo markay doonayaan inay wax un markaasi ay
isdaafsiyeen xataa xaqdaro hadday tahay si kastaba marka ha ahaato annaga xaqdaro uma socono laakiin baarlamaanka qodob ayaa jira oranaya oo tii ugu dambeysay ee xataa ay soo wada maartay gaareen go-aankeeda baarlamaanka markii la keenay 17 qodob December ay ahayd baarlamaankani waxaa bedelaya baarlamaan sharci ah oo lasoo doortay oo markaasi kadibna la wareegaya mas-uuliyaddii iyo xilkii baarlamaanka oo dowladnimada isaga u ah gundhig maadaama dowladani ay tahay dowlad parliamentarian oo iyadu ay tahay midda madaxweynuhu keentay oo dooratay iyadu ay tahay midda guddoonka baarlamaanka labadiisa gudoomiyaha iyo ayaga ay doorteen ama ha noqdo golaha shacabka ama ha noqdo golaha maaragtay aqalka sare ama sidaas oo kale xukuumadana ayaga ay yihiin golahayaashaasi maaragtay ama baarlamaanku midka codka kalsoonida xukuumadda uu siiyey marka waa gundhiga waa beyiska waa tiirka isku haya hay-adaha dastuuriga ee dowladda baarlamaanka marka baarlamaanka si aanun gaab u iman oo haddii xilligii la rabay in la helo awoodihii bedeli lahaa ee dastuuriga inaan baarlamaanka meel cidla ah aanan ooga tegin oo firaaq aanan iman ama gaab ayaa sharciyan oo xaq uu leeyahay inuu ku timo baarlamaankii kale lasoo dooran lahaa waa haddii la ilaalinayo nidaamka sharciga noo degsan ee dastuuriga ah waayahay barnaamijkan intiisa badan dhegeystayaasha ayaan fursada siinaa ayaga ayaana xiiseenaya waqtigan xaalada taagan dhegeysta jooga dalka koonfur africa ayaa qadka telefoonka ku jira walaal magacaa ku bilow soo dhawow iyo su-aashaadaba waad mahadsan tahay saro cabdi axmed waan dhawahay walaal xildhibaan dalxa waxaan weydiinayaa maadaama maanta uu madaxweynuhu khudbad ka jeediyey golihii shacabkiga uu sheegay sidii iyo waxay dowladdu samaysay inay hergeli waayeen iyo sidii wax u dhaceen dowladdii waktigeedina uu ka dhiman yahay waa maalin qura madaxweynaha iyo xukuumaddiisa baarlamaankiina waktigiisii u dhammaaday maxay tahay waxa la gudboon baarlamaanka dowladda soomaaliya badbaadinta ummadda soomaaliyeed iyo masiirka ummadda soomaaliyeed iyo midnimadii ummadda soomaaliyeed iyo sidee ma waxay sugayaan sida baarlamaanadii horey in faragelin shisheeye ay soo dhex gasho mise ayaga go-aamo rasmiga gaari doono waxaan intaas baa weydiinaysaa waad mahadsanta magacaagana abshir daar cabdisaaro abshir waayahay waad mahadsan tahay dabcan su-aashaas mid lamida ayaan isla hadda daqiiqad ka hor weydiiyey martida barnaamijka xildhibaan dalxa bal dhinaca kale haddaan u dhigo xildhibaane waxaa jirta in baarlamaanka xubnaha dhexdooda ay qaybsan yihiin oo dabcan ay kala aragti duwan yihiin waxaa tiraahday sharciyan markii la fiiriyo waxaa nahay ciddi buuxin lahayd haddii xataa marnaanshiyo siyaasadeed oo gaaba uu yimaado arrinka ku salaysan hogaanka dalka haddii adinka aad qaybsan tihiin oo xildhibaanadii xataa siyaasiyan ama kala aragti aad tihiin qaarkiin oo sida fadhida baarlamaanka marka laga dheehanayo xataa aad iska soo horjeedaan sida loo doodaya ama dhinacyada aad u kala taageeraysaan sidee ayaa adinka qudhiina aad wax kusii hogaamin kartaan ama aad ogol wax ku wada noqon kartaan su-aal muhiima wasaara kala duwanaanshaha iyo aragtida maaragtay mabda-iyan marka laga hadlayo taasi baarlamaanka wax u dhimi mayso baarlamaanka weligiisa ayaa fikir iyo maaragtay aragti kala duwan uu kusoo shaqeynayo marmarka qaar waaba quruxda baarlamaanka inay fikrado kala duwan iyo aragtiyo oo kala duwan ay yeeshaan laakiin baarlamaan wuxuu isku xukumaa waa codkaasi aqlabiyadda iyo baarlamaanka oo danta ummadda iyo qaranka iyo siyaadada ama suverenity-ga dalka ayadoo oo masiirka ummadda uu yahay midka isaga wax weliba priority la siinayo haddana kaasaa ummadda soomaaliyeed meesha iyada ay tahay danteeda ayaa baarlamaanka waajib ka saaran maadaama uu u dhaartay xildhibaanka inuu kaasi isaga ninkii masiirka ummadda soomaaliyeed ka naxayo dalka badbaadadiisa diyaarka u ah in sidii loogu aaminay mas-uuliyadaasi uu u dhaartay
ummadaas soomaaliyeed codkeeda uu meesha ku joogo oo ka turjumayo inuu maslaxadda wixii ummadda u ah inuu u codeeyo, halkaasna maaragtay ay noqoto in la raaco aqlabiyada baarlamaanka ee loogu hogaansamayo ayadoo la ilaalinayo mar waliba waxa sharciga iyo dastuurka uu qabo, oo wixii markaasi ka baxsan qarannimada soomaaliyeed ama wax u dhimi karo jiritaankeena ama maaragtay wax ka bedelid inuu ku sameeyo maaragtay basiirka ummadda soomaaliyeed iyo maaragtay artaanteeda qarannimo, taa iyadoo aanan meesha ay soo geli karin. haddana xildhibaan kasta waxaa si sharciga loogaga baahan yahay inuu usoo diyaar garoobo haddii ay noqoto qodobada qaarkood in cod la geliyo. waa tahay waa yahay dhegeysto kale ayaan jeclaan lahaa bal markana inaan sidoo kale tasiiyo khadka telefoonka. soo dhawo walaal, magacaaga ku bilow. waa mahadsantaha walaal, magaceygu waa Firdawsa Xuseen oo ku sugan magaalada Toronto. markan barnaamijka maanta aan fursad u helay aan ka qayb qaato, su-aashu waxa weeye baarlamaanka Soomaaliya maxaa la gudboon in ay dalka kaga gudbaan arrintan taagan ee soo noqnoqotay soomaaha xaalada siyaasadeeda cakiran ee dalka. baarlamaanka Soomaaliya waxaa la gudboon inay dalka aan dib loo celin, aragtideeda gaaban marka aan dhiibto, maadaama golaha baarlamaanka ay yihiin golaha sharci dejintana waxaan shacab ahaan ka codsaneynaa inay eegaan ama horumariyaan wax walba ka horumariyaan sharciga iyo masiirka dalka iyo weliba matalaada ummadda shacabka Soomaaliyeed ay ku matalaan baarlamaanka. sidoo kale golaha baarlamaanka waxaa la gudboon in maalin kasta soo noqnoqon in shaksi loo tanasulo oo sharcigu uu ka horeeyo shaksi iyo dana gaar ah. waxaan rabnaa in golaha baarlamaanka ay naga gudbiyaan tanasulkan soo noqnoqday muddada sanadka ah taagan, maalin walba inta rag la iskugu yeero laga baryayo masiirka iyo weliba doorashada dalka iyo hor u socodkiisa qaabkay noqon lahayd. sidoo kale golaha sharci dejinta waxaan ka codsaneynaa haddaanu nahay shacabka Soomaaliyeed in ay tusaale fiican u noqdaan shacabka iyo weliba dadka ku haminaya inay kasoo qayb qaataan siyaasadda Soomaaliya. marka ay wax diidan yihiinna ay si sharci ah ku diidaan ayagoona miiska noo qaraacin, ayagoona tusaale xun u noqon shacabka Soomaaliyeed. waxaa diidan tihiin sharci ku diida, waxaa ogashihiinna sharci noogu ogolaada. waa tahay dhegeystahaasi ee joogta Canada Toronto waxa ay baarlamaanka Soomaaliya dabcan sida aad maqlaysidba ay leedahay sharciyada raaca adinkoo dhanna aan fiirinaynin. dad badan oo shacaba dabcan ayada hadda waxay kusoo celcelisay in haddaan nahay shacabka qof unbay ka tahay, laakiin aragti laga yaaba inay dad badan qabi karaan inay tahay laga yaabaa. marka bal waxaad iga warantaa wixii ka dambeeyay shalay markii baarlamaanka uu ka dhacay kulankaasi, xubnaha baarlamaanka maxaa la gudboon ilaa iyo waqtigan? maxaa warara, maxaa kulamo ah, maxaa isu imaatin ood yeelateen? beesha caalamka cid idinla soo xiriirtay ma jirtaa? madaxda safaaradaha iyo ergeyga gaarka ee qaramada midoobe arrimaha Soomaaliya, maxaa intaas ka dheeri ah oo dahsoonoo dadka aad la wadaagi kartaa? zahra waa su-aal kaloo iyadana muhiim ah. baarlamaanka isaga kolley waxa uu la shaqeynayo mar waliba isgelinayo waa dastuurka iyo shuruucda u degsan iyo xeerarka maaragtay isaga uu ku dhaqmo. taa ayaa isaga horta ay u tahay wadada isaga inagu maaragtay waajibaadka uu leeyahay inuu usii maro ay maaragtay ay noqonaysaa inuu ilaaliyo mas-uuliyadda saaranna xildhibaanku waa wax laftirkeeda markaad eegtid xeer hoosaadka ay ku caddahay mid weliba guddoonka waajibaadkiisa baarlamaanka waxa uu yahay iyo waxa laga rabo iyo waxa isaga markaasi inuu guto loogaga fadhiyo. xildhibaanadu marka loo doorto ama ayaga ay noqdaan xildhibaan qaran ayagoo markii hore ku imaanaya wejiyo kala duwan, balse laakiin waajibaadka ay gudanayaan iyagana inay ku caddahay maaragtay iyagoo xildhibaano qaran ah maaragtay iyadoo qodobaysan ayaa maanta xeerka u qorayaa. wax weliba oo nidaamka taan horey u sheegay iyo dastuurka noo qoran ama xeer hoosaadkeena ayaa annaga waajibka naga saaran horta ummadda Soomaaliyeed inaan fulino oo aan ugu adeegno ayaa lagama maarmaan ah. midda kale shacabka annaga iyagaa ma ka nimid
waa midda iyaga loogu adeegayo ee maaha mid iyaga laga adeeganayo, waa midka iyaga loogu shaqaynayo maaha midka iyaga lagaga shaqaysanayo. xildhibaankii isaga diyaar u ah inuu ummadda amaanada sidaan horey u sheegay ee isaga maanta uu hayo sidii loogu talagalay inuu u dhowro iyo mas-uuliyadda qaran ee saaran iyo wadanka ee maanta ee isaga ummadda walaaca kulli ka wada hayo inuu dareensanaado loogaga baahan yahay waa ninka xildhibaanka ah. xildhibaanada si kasta wa aragti duwanaadaano ama ha u kala ma aragti fikrad duwanaadaano, laakiin meesha annaga ma aha waxaan ku shaqaynayno sida siyaasiyiinta ama haddaba ee maamul goboleedyada oo ayaga ay qabaan waxa la yidhaahdo consent oo wadar ogol, oo haddii hal maamul goboleed oo isaga banaanka istaago oo aanan intii kale waxba aan la dhaqaaji karin ama laba banaanka istaagto, annaga haddii 150 maaragtay 139 ayuu kooramka baarlamaanka ku furmayaa. hadduu 130 iyo maaragtay 9 ayaga ay ogolaato 138 ay diido, halka cod ee la dheeryahay ayaa sharci uu ku noqonayaa, codkaasaa shaqaynaya, inta kalena waxay ku gowracan yihiin waxa codkaa haldheerida ay ayaga loogaga adkaaday. ma taalo aniga ma qanacsani iyo aniga sidaan rabay iyo dantaydii meesha ogama maasay jeedi iyo aniga kaasaan ahay maba soo gashaba waxa la yidhaahdo ani ayadoo soomaalida horeyba u tirin aniyiri dad ka saar magartay. marka anaga anaaniyad hadday meesha soo gasho sharcina meesha wuu ka baxay. kuma shaqayno saraynta siyaasadda ee hadda waxa qasbaya dhan ee amuuraha dalka yaallo ay tahay sharcigiiyo laga sara maray, laakiin annaga markay nagu soo noqoto waxaa waajib nagu ah inaan ilaalino sharciga siduu yahay aan u fulino. waa hagaag mudane xildhibaan maxamed cumar dalxa, dhegeystaha waxaan jeclaan lahaa dabcan inuu ugu dambeyn doono aan filayo barnaamijka ka qayb qaadanaya. magacaa ku bilow, halkaad joogtid iyo su-aal iyo aragti waxaad qabto walaal. okay, waa mahadsan tahay walaal sahra iyo dhammaan bahda v o eba iyo dhegeystayaashaba. magacaygu waa maxamed xaaji aadan gaawe, india ayaan ku suganahay. runtiina dadka siyaasadda waddanka danaynayaan ahay oo la socda. aragti baan qabaa, ma qabo su-aal ma qabo. aragtidaydu waxa weeye waddankan maadaama soomaali iska leedahay macnaha in soomaaliya u tashato aadna macnaha waxa weeye la iskugu xil saaro, qof walba oo soomaaliyeed uu iskugu xil saaro waddankan sidii uga gudbi lahaa sarsuurta adag uu ku jiro saacadda hadda la maraayo, oo hay-adaha sharci dejinta ee fulinta iyo golaha baarlamaankaba waktigiisii uu dhacay oo meel adag la maraayo, in arrin siyaasadeed oo lifaaqii doorashada lagu aaday ee kii 17 September iyadoo laga duulayo awood in la iskugu geeyo. aragtida noocaasa ayaan qabaa. waana mahadsan tahay. waa hagaag, waa tahay aad baad umahadsan tahay dhegeystahaasi aragtidiisa. ugu dambeyntii xildhibaan maxamed cumar dalxa, maxaad kusoo xiri lahayd barnaamijka oo aada isleedahay waa arrin muhiima? xaqiiqatan waa umahad celinayaa dhammaan runtii dadka soomaaliyeed ee doodan maaragtay su-aalaha runtii usoo jeedinaya aragti ay ku midaysan wadan jacayl iyo soomaalinimo iyo in dalkani uu badbaado aanan loo celinin kale meeshii laga yimid. taasi waa mida dhammaan dareenka iyo shucuurka aan qabno ka wada turjumayo. laakiin rasuulka sallahu alay wasalam wuxuu yihi dhammaantiina jannada waad gelaysaan ilaa ninkii iska diida mooyaane. ninkaanan dowladnimo rabin iyo dal soomaaliyeed magaciisa iyo sharaftiisa iyo karaamadiisa in maaragtay la badbaadiyo ee dalkana horay u socdo aan meeshii kale loo celinin waa halkiisa iyo yeelkadiisa. laakiin baarlamaanka waxaa waajib ku ah ummadda soomaaliyeedna ee beri horta ilaahay lagu weydiin doonaa qof kasta inuu ilaaliyo maslaxadda ummadda soomaaliyeed iyo midda qaranka ah, oo waxa uu ka duurayo inay noqoto national interest. qaranka maslaxadda waxa ugu jirta ee aanan noqonin maslaxadda qabiilkiisa, aanan noqonin maslaxadda gaarka ee deegaankiisa, ee aanan noqonin maslaxadda gaarka ah ee saaxiibadiisa, ee aanan noqonin qaraabadiisa, ee waxa uu ilaalinayo uu ka duurayo ee uu u dhaartay kale inay tahay maslaxadda ummadda soomaaliyeed ee guud ahaan ee uu ka turjumayo. saaxiibadayda ayagaana maanta talada gacantooda lagu soo celiyey. hadday ku heshiin waayeen nimankii odayaasha ahaa ee ayaga wax ay la hor yimaadaan oo ay kusoo waafaqeen la waayeyna, baarlamaanka waa inuu talo ummadda soomaaliyeed ka farxisa u gaaraa, badbaadiyaana, si
sidii shalayba uu badbaadiyey marxalooyin adag lasoo maray oo meeshii annaga ay ka timid oo aan war u hayno iyo wixii laga soo maray iyo inta maanta xildhibaano maanta u badgalay u naf waayey ama iyaga dhibaato usoo gaartay taasi ninkii dareensan umalayn maayo wax ka duwan inuu la imaanayo haddii ay la yimaadaan dadkii jannada ka diiday naarta ka doortay waa iska jiraan dad masaa-ibada iyaga maartay iyada haysata dad iyaga marka iyagana dan ugu jirto horeyaa loo yiri oo masaa'ibu qawmin cinda qawmin fawaid laakiin umalayn maayo inay dawladda soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed inay dhammaan ay u noqon doonaan magan dawladnimo qof aanan rabin ama dalkan markale burbur iyo shalay meesha ka yimid laga celiyo. waad mahadsantahay professor maxamed cumar dalxa. kaasi waxa uu ahaa maxamed cumar dalxa oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka soomaaliya. barnaamijkan wicitaanka dhegaystaha ayuuna marti ugu ahaa wuxuuna nala falanqeynayay aragtida iyo waxa laga filan karo baarlamaanka soomaaliya kadib khudbadii shalay madaxweynaha soomaaliya uu u jeediyey baarlamaanka markii uu fashilmay shirkii magaalada dhuusamareeb. barnaamijka intii ka qayb gashay iyo mudanahaasi asaga martida ku ahaaba dhammaanba waan u mahad celinayaa. intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana nabadgelyo. zahra cabdi axmed ayay ahayd uu soo jeedinaysay xubinta wicitaanka dhegeystaha. haatana dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya axmed faarax cali idaaja. waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a-da. dhegaystayaal marka ay adeegsiga sheeka xiriirooyinka iyo mahmaahda joogto maanseyahanadu ma kala laha umana kala qaybsanee way u siman yihiin kuwo dambe iyo kuwo hore. macnaheedu wuxuu yahay maansada soomaaliyeed ee casriga ah inta aad dhex mushaaxayso waxaad kolba ka kor dhacaysaa maanseyahan tixdii uu tiriyaba hal maahmaah iyo ka badaniba ay ka dhex muuqdaan. hal-abuurada haddaba aqoonta maanse curinta loo fududeeyey ee markay wax tirinayaan adeegsiga maahmaahdu uu haddiiba maankooda ku soo dhaco waxaa allaha u naxariistay ka mid ah cabdulaahi macalin axmed oo dhoodaan ku magac dheeraa. malahayga waa dhif gabay uu leeyahay oo aan maahmaahdu ku googo'nayn taasoo aad mooddo marar badan inay ka tahay dhoolatus uu ku bandhigayo aqoonta dheer ee uu dhaqanka dadkiisa iyo dalkiisa u leeyahay gaar ahaan dhaqanka reer miyiga iyo murtidooda darfaha ballaaran ee waaye aragnimadoodu ay siisay. dhowr tusaale oo aan ka soo xulay gabayadiisa tirada iyo tayadaba badan aan u horraysiiyo mahmaahdii ahayd cadowgaaga dhuux sagaaraa loogu soo dhaashadaa. sida muuqata waa murti inagu waaninaysa dandarrada markaas ina haysa inaan qarsanno oo aan cadowgeennu foolkeenna ka akhrisan. si aanu cadowgaasi inuugu wiirsan waa inuusan jireec inaga garan oo markii uu inaga hor yimaado aan u muujinno dhereg iyo ladnaan aan wada run ahayn. gabay haddaba dhugad la yidhaahdo oo 1960 uu soomaalida ku guubaabinayay kuna hoga tusaalaynayay iyada oo dhaqankeeda ku dheggan in haddana gaadhista horumarka casriga ah ay u xusul duubto. gabaygaas ayuu dhoodaan mahmaahdaa ku soo qaatay isaga oo weliba ujeeddadeeda shishe ee looga dan lahaa inoo sii kala dhigdhigaya. wuxuu yidhi raggiisa aabbayaasheen dhalay baa dhaafay hadal weyne maahmaahyaday noo dhigeen midaan ka soo dheegay intaad sacabaduu dhigan lahayd cadowku dhuudaya si uu dhooma inaad buuxsatood dharagtay kuu moodo dhafoor xun iyo cadowgaagu yuu dhuubni kaa garanne waxaaba loogu soo dhaashadaa dhuux sagaarah. markaad hadalku geystuu u dhici sii dhadhamisaanna dhudhunkeeda taa lama lahayn dheef ka raadsada macnuhu waa dhiggaa lama baryee ceebka dhowrsada. isla xilliyadaas ayuu dhoodaan tiriyey gabay isagana uu soomaalida ku hoga tusaalaynayo. tixdaas ayuu gabyaagu wuxuu inoogu muujinayaa farshaxnimada uu maahmaahda maanse ugu rogi karo iyada oo inay dhib ku tahay aan innaba laga dareemayn. wuxuu soo qaatay 4 maahmaahood oo kale ah
dhagax taabasho iyo tuujini waa isagato hal nin la toosanin nin la tuur leh waana abuur baa ka horraysay iyo saddexleedii ahayd saddex baa rag ugu liita ma tabcade ma toshe iyo ma tashiishe dabadeedna gebigoodba intuu isxojiyey ayuu ku soo koobay 7 meelis oo ka mid ah gabaygiisii uu tusaale u bixiyey wuxuu yidhi dhagax taabashiyo tuujin iyo inaad tantoomayso saddexdaa midkaad ula tagtaa waa isugu taagee nin wixii la toosani mid buu tuur la leeyahay waanada abuurkaa tirtira oo ka tabaroone qofkaan tirinse maalkiisu waa inuu tasoobaaye maradiisa kaan tolan dhaqsay uga tifmaysaaye ka tashiiran waayana ma dhalan si u taajiro soomaalidu waxay kaloo ku mahmaahdaa hasha labada geel jecel dhexdoodaa bahal ku cuna waxaa lagu mahmaahaa keli ama koox kolba ciddii aan go'aan adag lahayne laba dhinac oo xinifi dhex taal waaba dhinac iska raacda kuna raas noqota cidda sidaas u dhaqanta ayay mahmaahda u dardaar warinaysaa waxayna dhoodaan ku soo dhacday mar uu u dan lahaa niman uu barbarayn iyo talaxumo ku malaynayey malahaygana uu jidhku u danqanayay hasha dhaqankaas leh intuu ku maseeyey ayuu nimankii ugu duur xulay sarsarkiiyo hashii labada geel soof ku wada raacday ee bahalku seeraha ku dilay kama sokaysaan waxaa sidoo kale iyaduna jirta mahmaah saddexley ah oo ay soomaalidu tidhaahdo 3 waxyaalood rabbi waa karaa mase yeelo dhisan maayee allow dhal isii xoogsan maayee allow xoola isii iyo camal falan maayee allow ha i cadaabi isla gabaygiisii xarafka siinka ah ku tirsanaa ayuu dhowdaan mahmaahdaasna u adeegsaday isaga oo nimankii uu canaananayay markaas quuska jooga waxaa u muuqatay inay ka soo reeyaan inay riyo uun tahay afarna looga dhigi karo 3 arrimood ee uu eebba karo hase ahaatee aanu weligii yeelin sidaa darteedna aan marnaba dhicin oo iyaga oo rumoobay aan waana loo soo joogin markaas buu yidhi 3 la yidhi eebbahay suuro gelin maayo sancadiinna saaweyn kartaa laga saliiliyoon cilmiga barbaarinta carruurta inkastoo aanay magacaas u aqoon haddana soomaalidii hore wax weyn baa uga bilowna in badan oo ku saabsan hababka korinta dhallaanka iyo kobcinta garaadkooda ayaa laga helayaa suugaanta qaybaheeda kala duwan gaar ahaan mahmaahda iyo sheekooyinka hiddaha ee daa'iba da'da ka dambaysa ay dhaxalsiin jirtay taana waxaa tusaale wacan u noqon karta mahmaahda ah awrba awrka ka horeeya saanqaadkiisuu leeyahay oo macnaheeda dhowi uu yahay haddii 2 rati ama ka badan la isku xidhiiriyo wuxuu mid waliba yeeshaa saanqaadka midka ka horeeya oo kale haddii uu dheereeyo wuu dheerayn haddii uu gaabiyana wuu gaabin dulucda shishe ee mahmaahduse intaas way ka baaxad weyn tahay waxayna baraysaa barbaarinta carruurta cashar ku saabsan oo ah inay had iyo jeer u badan tahay kolba curadka qoyska u soo hormara in wiilasha kale ay ku daydaan waaga dambena ayba ku dabeecad noqdaan badanaa waalidka soomaaliyeed ayay mahmaahdaasi ku soo dhacdaa mar walba oo ay arkaan qaar carruurtooda yaryar ka mid ah oo tabihii guraacnaa ee kuwa ka waaweyn ay ku arki jireen iyaguna ku dhaqmaaya haddaba cabdulaahi dhoodaan oo mahmaahdaas gabayadiisa midkood u soo daliishadayna waa kii lahaa margibaraqa awrkee hoggaan lagu makaabeeyey ka xiriirka la ysugu maray ee daba mushaaxaya tallaabadiiyo miidaanka socod way ismatalayaan dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa inoo jooga waana toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo aad ayuu u mahadsan yahay axmed faarix cali idaaja oo inoo soo jeediyey barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha haatanna aanu jalleecno dhinacii kaalimaha heesaha nasiibyo umaad samayn markaa dadka nooca
nooca badan naqaysay tiri midaha noloshu waxay tahay aqo nasiib yahow maad samayn marka dadka nooca badan naqaysay tiri midahan noloshu waxay tahay aqo kaliyaay nabarada waqtiga nitaaqada waan mugte macantabanidar ila saxiix jacaylada naafada nabiibkiyo xaasinka u noqon maayo kaliyaay nabarada waqtiga nitaaqada waan mugte macantabanidar ila saxiix jacaylada naafada nabiibkiyo xaasinka u noqon maayo naftayda ayay dirqiin ku jeer baad niya jabtay qalbigu way yaranaastay hay jabi ruuxin neceb naftayda ayay dirqiin ku jeer baad niya jabto qalbigu way yaranaastay hay jabi ruuxin neceb aanu naxariis kalgacal nasteexa ku sood lahaa wadnaa ku nagey lahaa naftiga ku xariiq lahaa aanu naxariis kalgacal nasteexa ku sood lahaa wadnaa ku nagey lahaa naftiga ku xariiq lahaa waqtiga nacabigu dariyo ookaygow imanexe cadaayigu nabay qobka dibkayga kunaxayo naxiyo xumo waan mute mar kale hay beer nuglayn waqtiga nacabigu dariyo ookaygow imanexe cadaayigu nabay qobka dibkayga kunaxayo naxiyo xumo waan mute mar kale hay beer nuglayn naftayda ayay dirqiin kunjeer baad niya jabte qalbigu way yaranaastay hay jabi ruuxin neceb naftayda ayay dirqiin kunjeer baad niya jabte qalbigu way yaranaastay hay jabi ruuxin neceb idaacaddeeni fiidnimana dhegeystayaal waan laga intaas waxaa idiin soo jeedinaya nuur xasan nuur iyo anigu ah ibraahim xasan daandure intaan markale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo nasiib yow maad samayn marka dadka nooca badan naqaysay tiri midaha noloshu waxay tahay aqo nasiib yahow maad samayn marka dadka nooca badan naqaysay tiri midahan noloshu waxay tahay aqo kaliyaay nabarada waqtiga nitaaqada waan mugte macantabanidar ila saxiix jacaylada naafada nabiibkiyo xaasinka u noqon maayo
nabarada